حسن حسين waxaa maanta magaalada Kismaayo lagu soo gabagabeeyay doorasho 3 kursi oo ka mid ah 43 kursi ee ku asteysan Jubbaland taas oo ku guuleysteen musharaxiinta kala ah Xasan Xuseen Maxamed oo cod dhan 74 kaga guuleystay Cabdiraxmaan Macalin Xuseen sidoo kale Dr. Axmed Aadan Axmed oo cod dhan kaga guuleystay 84 cod Cabduqaadir Cabdullaahi Xirsi halka uu Yuusuf Maxamed Ismaaciil tan uu ku soo baxay tanaasul ka yimid musharaxii la tartamayay markay soo ilaatay waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ee Jubbaland Seat Dr. Siyaad Maxamed Mursal waxaan halkan u soo istaagay inaan si kooban u gudmaro shaqadii aan saaka halkan u nimid ee doorashada kuraasta kala ah 126 118 iyo 127 kursiga markii koowaad ugu tartamay wuxuu ahaa kursiga 126 waxaa ku tartamay Xasan Xuseen Maxamed iyo Cabdiraxmaan Macalin Xuseen waxaa ku guuleystay Xasan Xuseen Maxamed oo hadda laga bilaabo ah xildhibaanka matali doona kursigaas ku matali doona aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya insha Allah kursiga labaad waxaa ku tartamayay Axmed Aadan Axmed iyo Cabdulqaadir Cabdullaahi Xirsi kursiga nambarkiisu waa 127 waxaa ku guuleystay Dr. Axmed Aadan Axmed oo noqon doono xildhibaanka kursigan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya kursiga saddexaad ee lagu tartamayay wuxuu ahaa 118 waxaa ku tartamayay Yuusuf Maxamed Ismaaciil iyo Cumar Maxamed Cumar waxaa tanaasulay doorashada intaysan bilaaban Cumar Maxamed Cumar sidaa daraadeed Yuusuf Maxamed Ismaaciil ayaa cod gacantaaga loo qaaday waxaana loogu codeeyay 101 cod wax diidayna ma jirin wax ka aamusayna ma jirin kulli gacanta loo taagay sidaa daraadeed waxaa kursiga ku guuleystay Yuusuf Maxamed Ismaaciil 101 cod hadda laga bilaabo asaga xildhibaanka kursiga ku matali doona dowladda baarlamaanka aqalka hoose ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya halkaas ay noogu eg tahay aad baad u mahadsantihiin Cabdifataax Al Jaamac magaalada Kismaayo